السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قاليات ستهين في عنتين وين سلامي ميل كستد أدونك كتشوكتان يعني ما هو البيت كتشوكتان إن هدي أرور كوتاي هدي قلب كوتاي دمانت وين سلام waxaan kaloo mahadcelinayaa asxaabteeda maalin walba igu soo biirta aad iyo aad baa mahadsantihiin maadaama maalin walba igu soo biirtaan soo dhawaada channelku waa channelkiini yacni xitaa wax walba waad ka faa'iidaysaa bila faa'iida markaas soo dhawaada asxaabteeda qaaliyaad qalbigayna ka jeclahay mar walba ducooyinkana inooga barateen baan soo gudbiyaa waxaan u soo gudbiyaa ducooyinka inaan ku faa'iidno inaan maalin walba laasino waqti walba inaan ku celcelino marka dhibaatayna haysayna dhibaatada kaga baxno ayaa mar walba ducooyinka u soo dhigaa oo ugu soo celceliya in Allah inagu anfaco kuwii alla rabbiga raxmaanka anfacaan ka helana Allah ka dhigo ducooyinka ma wax lagu khasaaro waa wax horumar lagu gaadho oo yacni noloshaada dhisaya oo kor ku qaaday weeye marnaba hasdihin ducooyinku darajo lagama gaadho darajo waa ka gaadhaysaa waa ku liimaanaysaa waa hadday niyadaadu samaan tahay yacni hadday niyadaadu aaminsan tahay ilaahay hadday aaminsan tahay alla maahaane cid kale inaysan jirin alla maahaane wax walba inuusan bixin ducooyinka meel baa ka gaadhaysaa ilaahay wuxuu ku fududeynayaa qur-aanku ku fududeynayaa ducooyinku ku fududeynayaa nolosha adduunyaduna waxay hagaagtaa markaad ilaahay xiriirkiisa aad hagaajisid soo mar walba inoo soo duceynaya insha allah dhammaanteenba adiga aniga dhammaanteenba allah inaga dhigo kuwii toosan dariiqa toosanna mara kuwa kalena allah soo hadeeyo kuwii toosanna allah sii hadeeyo maanta ducadeena waa ducada risqiga yacni badanaa waxaan jecelnahay inaynu mar taajirno lacag badan inaynu helno yacni bili-aadanka o dhan baaba saas kaga samaysan qof walba hamigiisu muxuu yahay inuu darajo ka gaadho lacag inuu maaragtay lacag uu helo marka maanta ducadeenu waa ducada risqiga yacni ducadan akhriso kuna celceli waa ducada risqiga waxaad allah adoo yaqiinsan aad weydiisataa inuu risqi wacan oo xalaal uu kasoo galo maadaama risqiga yacni lacagta qaar hadday kusoo gasho iyadoo xaaraan waxaa laga yaabaa guriga inay kaa fidmeyso nolosha inay kaa fidmeyso caruurta inay kaa fidmeyso laakiin haddii risqigaad ilaahay weydiisatid waad tiraahid aad raacisid allah ilaahay siiyeew risqigan amaad ka bariday mid xalaalo oo wacan alloo iiga dhig rabbi raxmaan haddaad tiraahid waxaa laga yaabaa ilaahay inuu kuu barakeeyo uu kuu ficneysiiyo aadna ku badhaadhid markaad ducadan insha allah ku duceyso ducadan waa ducada risqiga yacni qof walboo baahan qof walboo raba in noloshiisu maaragtay sida uu ku jiro inuu ilaahay ka saaro yacni qof walba wuxuu aaminsan yahay yacni qof walba wuxuu jecel yahay lacagta soo ducadani waa ducadii lacagta ku heli lahayd lacagta laskama helo marka ilaahay weydiisanaysid waa inaad yaqiin la timaadid waa inaad ilaahay marka hore rumaysan tahay waa inaad ilaahay maahaane aadan cid kale baryin yacni marka oo ii sheegay hadda matalan madaxu ku xanuunay kasoo qaad farmashigan tagnaa kaniin baan soo gadanaa waxaan aaminsanahay kaniinkaasi in uu inaga qaadayo xanuunka saasoo kale lagaa rabaa ilaahina inaa u aamintid oo yaqiin la timaadid oo aad ogsoon tahay inuu allaha rabbiga raxmaanka ah uu irsiq inoo hayo nolosha inoo hayo dhimashada inoo hayo asagana lagu noqon doono marka insha allah wax walba aad ilaahay weydiinsanaysid waxaa la dhahaa waxaa ka horeeya inaad qalbigaa ilaahay u jeedo yaqiinsan yahay ilaahay ugu qushuucsan yahay qushuucda ilaahay ay ka buuxdaa ilaahayna aad xidhiidh la leedahay ayaa duco walba ka horeysa inaad ii sheegay waxa aad baryaysid inaad heshid waxa ka horeysa inaad ilaahay xidhiidh la yeelatid
marka waa say wadaadada badanka ay dhahaan wax walba oo aad rabtid ilaahay ka rabtid ilaahay u gaaro yacni cidna ha la caabudin cidna ha la wadaajinin ilaahay bes bari ilaahay bes unbaa kor kuu qaadi kara maanta ducadeenu hadalka waa ku dheeraaday ducadana maanta waa ducada risqiga waadna ku celcelinaysaa insha allah ducooyinka sideeda waxaa la aqbalaa aroortii alaasayda hore haddii roob da-ayo oo kale sidoo kale haddaad salaatuleyl u soo kacdid xiliyadaasi waa xiliyada ducooyinka la aqbalo markaa ducadan ku celceli oona dheh allaahumma innii as'aluka bismillaah waxaa tiraa allaahumma innii as'aluka min fadlika waraxmatika fa innahu laa yamlikuhaa ilaa anta ducadan haddaa risqi u baahan tahay oo risqi badan qof aan u baahnayn maba jirtabe qof aan risqi u baahnayn oo risqi fara badan u baahnayn oo risqi xalaal ah u baahnayn maba jirabe laba soo heli maaye ducadani waa ducada risqiga waa ducada lacagta badan ku helisid haddii aad duceystay alla wuu ka aqbalayaa markaa ku duceyso waxaadna tirahaa allaahumma innii as'aluka min fadlika waraxmatika fa innahu laa yamlikuhaa ilaa anta ku celceli haddii ii sheegayaan iyadoo carabigan soo daayay iyadoo af soomaaliyana xagga hoosaan kusoo qoraa inkastoo ayaamahan dambe xoog baan aniga u mashquulsanahay sidaa darteed waan kusoo qori jiray af soomaali laakiin haddana waan kusoo qoraa insha allah waa kusoo celinaa af soomaali inta duca aanan kusoo qorin waa kusoo celin doonaa waana kusoo qori doonaa insha allah mar walba xusuusnow xuska ilaahay ama yaqiinta ilaahay ula timaadid inay qurux badan tahay inay fiican tahay inaad liibaan aad ka helaysid oo liibaantu aad iyo aad u fiican tahay risqiga sideeda ilaahay markaa weydiisanaysid haddii amuru inta ku adkaadaan risqigu kugu adkaado 2 ragcadood ayaa la tukadaa 2 ragcadood markaad tukatid adoo ku dhex jira 2 ragcadood ilaahay ku bari u ooy u khushuuc laguu sheegay waa in ilaahay u ooydid oo ilaahay qalbigaaga tusid inuu asaga u jeedo asaga aad baryaysid markaa ka bacdi allana wuu kaa aqbalayaa darajada aad markaa doonaysid ama aad ku haminaysid qof walba waxbuu ku hamiyaa bilaa hami ma nihin ilaahay wuu ku gaadhsiinayaa markaa saxaab waxaan isku ognahay maalin walba ducooyinka inii soo gudbiyo in ilaahay igu anfaco idinkana ina ku anfaco assalaamu calaykum waraxmatullahi